السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا عبد الرحمن وحرجاني دمانتين بينا لينتين عاو حاربينا رنتي رياكشن كبحي قبر رنتي أرن عجيبة سميسي مرة بينا كهرب مركب بل تواشو عن بإذن الله. وباهنت من السلطة قيب كم من الشغالها اسبتالada health departments waxaa marka hore u fahmay in meesha ay tahay meel yar oo xaflad oo wax lagu daahfurayo ama arrin camal qurux badan la sameeyay oo dadka isku yimaadeen marka arrintaas ayaa lagu xafladeynayaan u fahmay marka bal marka hor dhacay ila daawo bismillaah ilaa khayra ka dhigo ma sha Allah qalbi waa khayr ilaa khayr farxad baan ha ka sii dhigo iyo baak ninkale iyo qaar ka mid ah bulshada Minnesota ayaa isugu yimi daafurka barnaamijka xijaabka oo isbitaaladaas laga dhexeli karo ها ما شاء الله ما شاء الله وحول بودين تكوسابسو وقروح بدن ودو إله يا رسول كيس هرنا وأمرين حتى نقف كل سمي الله تشعليا وحاله يروى دافر كوسابس معني إن إسبتالا لا يقدح الحجاب مركرنت واحد نفهم أول إسبتالا ما لا يقدح الجرن حجاب لكن سمعت ولا يقدح وحنا كده بيسن قبر صومالي ما شاء الله ما شاء الله هيه حجاب يدا أيه lagu dhaxgadayaa gudaha isbitaalka qaybta dukaamada hadiyadaha oo badi isbitaalada ku dhex yaala dalkan lana siinayaa bukaanka muslimiinta ah haddii ay u baahdaan kan wuxuu ku saabsanaa hospitaalka ugu horeeyay Mareykanka xijaabo patientka iyo employee-ga available uga dhiga ما شاء الله وانا اسبitaalkii ugu horeeyay oo America dhaxdiisa ku dhaxyaalo oo u ogolaada ama laga helayo xijaabo kuwaas oo ay xiran karaan dadka muslimiinta oo bukaanada oo xanuunsan dhamaan isbitaalada ku yaala America dhamaantood laga heli jiray xijaab laakiin maanta laga bilaabo waxa jira isbitaal laga helayo yaani ka dambe gabar Soomaaliyeed qof muslim ah ma sha Allah Hilal Ibrahim oo ahmada Hilal Ibrahim Hilal dayax ma lii jiray inta qamar baa xididka miyaa ma shirkadda xinna iyo xijaab oo samaysay dharka xijaabka ah ee isbitaaladan laga helayo ma sha Allah Hilal Ibrahim iyadoo 14 jir oo dhigata dugsiga sare ayay si iska wax u qabsa ah isbitaalkan uga dhax shaqeyn jirtay markii 14 sano jirtay isbitaalkan ay ka dhex shaqeyn jirtay si bilaasha maanta markii maxay samaysay idinka arkaya haddana waxa ay ka mid tahay shaqaalaha qaybta gargaarka degdega ah ee isbitaalka baarka Nikole waxay Hilal qabtaa in qofkii isbitaalkan jooga haddii uu u baahdo xijaab uu helayo taasi ay ixtiraam u tahay diinteena la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha waxa soo baahana Hilal waxay qabtaa in hadduu qof muslim u baahdo oo qof dumar camal u baahato inay xijaab u baahato iyadoo ku dhex jirtay maxaan ku dhahay isbitaalkeeda in ay heli karto oo si fudud ay ku heli karto oo dukaanka maxaan ku dhahay garabkeeda ku yaala ay ka soo iibsan karto fiiri waa qof maxaan ku dhahay saameyn ku leh dadka waa qof rabta in dhammaan walaalaheeda muslimiinta ay caawiso waxay ka caawin karto ay ka caawiso taas ay u baahannahay waa arinta ani runtii nagala baahan yahay in aan noqono dad saameyn ku leh meesha ay ku nool yihiin waxtar ku leh wax soo saar ku leh sida gabadhaan kale ma sha Allah Allah naga dhigo dhamaanteedba iyada waxay noqonaysaa ruuxa hospitaalka jiifa ama shaqaalaha xijaab u baahan meel kale uma raadsanayaan hospitaalka dhexdiisu yaala taana waxay muujinaysaa hospitaalkan oo Mareykanka ku yaalo inay aad u ixtiraamto dadkeena iyo diinteena ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اسبتال كاس إلهي وحالينا هبركة دتك كو حنوسن قدودن وحالينا إلهي عافما دق هسي إلى أنه حنكبرين لما أنتو سو حنونية إدور بميشاس كو جرتا وقالا أنت مسلمين تنا إلى وحنكبرين حنون كدو إنه إلهي زيادة إذا كان آمين تدهد مسوء آمين سنتين آمين ده ولا ليا دوقا مقالة سيلوس بارك جيك سيلوس بارك ودوقا مقالة هيا أنا أيا كلن كان كادلي وحونا حسي markii ugu horeysay oo Hilal Ibrahim kula kulmay gudaha isbitaalka 4 sano ka hor almost 4 years ago to the date and I don't know if she knows this right down this hall I met Halal muddo hadda 4 sano laga joogo ayaa isla hoolkan waxaan ku kulannay Hilal Ibrahim waxay markaas isbitaalkan u qaabilsanayd soo dhaweynta dadka waxaan maalinta ballan la lahaa maamulaha isbitaalka runtii
ninkan wuxuu ka sheekeynayaa 4 sano kahor wuxuu la kulmay gabadhan iyadoo meesha dadka lagu soo dhaweey joogta ayuu ka sheekeynayaa waana arrin cajiib arrinta kale ii muuqato waxa waaye runtii waad ujeedaa ninkan maxaan ku dhahaa gabadha ayuu wuxuu ka sheegayaa hadallo fiican ama adigu wuu faaninayaa gabadhan maxay sameynaysaa runtii isku way xishootay hoos ayayna fiirisay waxayna muujisay inay tahay humble qof degan oo runtii aan isqaaqaadeen maasha allah iyadoo wax fiican laga sheegayo ayay haddana humble iska dhigaysaa maasha allah ilaahu noo ziyaadi waxaan isla soconay maareeyaha magaalada hilaal ayaana geysay xafiiska maamulaha isbitaalka waxaan aad u xusuustaa in intii aan sii soconnay ay nooga warrantay waxa ay qabato iyo waxa ay doonayso inay noqoto mustaqbalka markii aan kala tagnay ayaan ku yidhi maareeyaha magaalada gabadhan maalin unbaan dib mar kale u kulmi doonaa 4 sano ka hor ayaad ogaan kartay in hilaal ibraahim ay noqon doonto qof magaca ku dhaxlay magaalada waana sababta aan maanta halkan u joogno And that brings us to today. maasha allah ninkan wuxuu leeyahay 4 sano ka hor markaan la kulmay aan wada sheekeysanayna aan sii soconay aan u socdo qofka raba inaan la kulmo ayaa waxaaba gartay gabadhan inay noqon doonto qof saameyn ku leh waana maanta arinta meeshaan ay keentay maasha allah 4 sano ka hor ayaa garan kartay in gabadhan inay noqon doonto qof saameyn ku leh bulshada dhexdeeda ilaah waxaan ka baryaa aniga adiga inuu ilaah uu naga dhigo dad saameyn ku leh meeshay ku dhex nool yihiin mar walbana maxaan ku dhahaa saameyn fiican ku yeesha ayaan ilaahay ka baryaa sida gabadhan oo kale maasha allah sacad oo xubinka guddiga waxbarashada ee magaalada Habkanis oo aad ugu dhow cisbitaalkan ayaa iyaduna aad u soo dhaweysay hawshan ay cisbitaaladani bilaabeen hadday aragtid cisbitaalkan waa cisbitaal weyn oo Soomaali badan maxaa la dhahaa ay imaadaan dad muslimiin badan ay imaadaan markii inay imaadaan ay arkaan dhaqtariin oo xijaab qabaan ay ka gadan karaan gift shopko waxay macnaynaysaa gabdhaheena inay dhaqtariin noqon karaan inay isbitaalada ka shaqeyn karaan inay administrationkiisa ka shaqeyn karaan inay maxaa la dhahaa meelahaas oo camal ku soo dhaweynayo oo waxay u baahan yihiin ay ka heli karaan ugu dambeyntii ayaan hilaal weydiiyey waxyaabihii ay arki jirtay markii ay yareed ay cisbitaalkan ka dhex shaqayn jirtay oo hadda hindisahan ku keenay mararka qaarkood waxaan arki jiray haween oo umulaysa oo ama loo sii wado inay operating roomka lagu qalo laga umuliyo ama umulaysa si caadi u umulaysa inay xijaabka ka dhacdo marka haweeneyda waxay xiranaysaa go' ay madaxa saaranaysay mararkaas kalena waan ag joogay so markaan aqliyeystay oo weynaaday oon dib u fikirnay tiimkeena waxaan go-aan gaarnay inaan xijaab oo hosbitaal dhexdiisa ay bukaanka iyo shaqaalaha labadaba xirin karaan inaan samayno maantana alxamdulilah xijaabkaas ayaan soo bandhignay maasha allah gabadhaani waxay arrintaas u samayso dhan waa maxay sida kuu sheegtay marka in ay markaas xijaabka maxaan ku dhahaa qofkaasi uu ka dhaco markaasna maxaan ku dhahaa mara ay madaxa saarato marka waxay gabadha ku fikirtaba in la helo xijaab yar oo markaasi qofka uu ka dhexeli karo maxaan ku dhahay isbitaalka markaasna ay ka dhicin waa run aad iyo aad u fiican arrinta kale cajiibka waxaa gabadha hadda aan ka maqlay inay group yihiin runtii Soomaali waxay dhahdaa macnaheedu maxaa la yiraahdaa gacmooda jir bahay wax ku gooyaan runtii dadka markay group yihiin isla wada shaqeynayaan aad iyo aad u fududahay inay runtii wax soo saar iyo maxaan ku dhahaa ay sameeyaan marka ilaa waxaan ka baryaa annagana soo kale inuu koox wanaagsan ilaah naga dhigo wax soo saarta amiin ya rabbi maasha allah intaas macnay baa video ku soo dhamaaday runtii aad iyo aad ay u fiicantay markuu qofka maxaan ku dhahaa wax tar leh oo la yimaado in runtii maxaan ku dhahaa aan sii dheerigelino aan wax fiican ka sheegno hadaa ku cusubtaa channelka diinta macaankeeda fadlan ku soo biir si markaas aad u ogaatid wax walba aan soo dhexdhigno waana mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh